kulankani waa miseer saraaloo soo agaasimay isla markaana ay soo qaban qaabiyeen qoomiyadda oromada Soomaaliyeed ayna ku casuumeen kulankani walaalahooda dalandoolo mudulood ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya. kulanka waxaa ka qayb galay odayaal waxgarad ugaasiyo culimaawidiin dhalinyaro iyo haween. ugu horeyn kulankaasi iyo ujeedadiisa waxaa goobta sharaxaad kaga bixiyay ugaas Maxamuud Sheekh Xasan. soo dhawaada walaalaheena beesha daraandoole mudulood oo gogoshaan u filinay. soo dhaweyn kadib waxaan rabaa laba kalmadood oo kooban inaan idhaahdo. waa tan koobaad, adduunka meel 40 sano qof uu qaxooti ku yahay ma jirto iyo 50 sano. waxaan xasuustaa 64 bilaaja markaan nimid dadkii gabdhaha na siiyey guryahooda nagu soo dhaweey waxay ahaayeen beeshan. maanta waxaa idin soo dhaweynaya ilmihii gabdhihiinu ay dhaleen odabtayaasha waydeen. waxayna dalbanayaan inay helaan xaquuqdii waddankan ay ku lahaayeen. waxaan idiin soo horumarsanay bani aadamku hadduu jase leeyahay jasaad leedihiin asxaantu inaan tilmaano laba ubadkaad dhasheenna xaquuqdii ay lahayn dalbanayeen aad barbar istaagtaan. qaar ka mid ah xubnihii kala duwanaa ee ka qayb galay kulankani ayaa dhammaantood waxay isla qireen in qoomiyadda oromada Soomaaliyeed iyo walaalaha dalandoolo mudulood ay yihiin dad wada dhashay xuquuqna ay ka wada dhaxayso. marka maadaama ay tahay gogol bilaawa sii socdoonto waxaa la yidhi marka warka la soo koobo anagu warka soo koobaayo. marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa walaalahayaga gogisha noo dhigay ee maanta noo yeera. marka u mahadcelinayaa waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sida sharafta leh oo qiibaha leh ee aad maanta u xusteen in dalkan markaad imaahayseen adinkoo isirka aad ka dhalateen soo raasateen markaad imaahayseen isirkiina halkaan idinku soo dhaweeyay maanta inaad gogosha ka bilowdaan inaad u baxdaan. halkaa markay yimaadeen isirkii ay ka dhasheen ayaa soo dhaweeyey, magaaladan ku soo dhaweeyey, gabdha siiyey, dejiyey. maantana waxay marayaan 30,000 oo qoys in ka badan ay marayaan. يعني هدي شلي ليدن كلا قوقباي سيدا حتى دادان اوغايو حمر جوغ لو كلا قوقبا او قار لالوش لوسي قارنا لبهدلو هدي ليدن كلا قوقباي شلي waxaan idin ku codsanaa intiina iga soo horjeedo inaad habari ooda naqatiin. warkaasna aad meel iska dhigtiin nin walbaana inuu ku xisaabtamo canuga adiga aad dhashay kaad adeerka u tahay kaad abkowga u tahay kaad abtiga u tahay waxaadan u dhaafin ma helaayo. maanta sida aad ka warqabtiin dulmi ugu weyn wuxuu gaaray dadkii shalay aan soo dhaweynay oo guryahayna dejinay oo goofafkayna siinay oo dhulalkayna guryo ka dheer ka dhisteen. maalin dhaweeda markii la yiray xamar waxbaa la siiyey nacnacda dhacday iyo waxa dhacay waad maqasheen. boosaaso iyo Kismaayo dadka ka jooga meeshaan duu daarandoolay ku degan yihiin 35,000 ama 40,000 ay magaalada ku degan yihiin. wax xuquuqna ma laha, wax mudana ma laha, wax xildhibaana ma laha, waxba ma laha la leeyahay. waxaan anigu aqaanaa dad 12 qoys ku degan xamar. qolo waxaan aqaanaa xamar haddaba magacooda waa sheegaa 12 qoys ay ku degan yihiin. qoladaasi waxay leeyihiin mudane aqalka sare ah xildhibaan aqal sare leeyihiin, xildhibaan aqal hoose leeyihiin, gudoomiye ku xigeenka gobolkay leeyihiin, gudoomiye degmay leeyihiin. 12 qoys ay ku degan yihiin xamar. in la yiraahdo 35,000 oo qoys ama 40,000 oo qoys yani hal mudane ma laha. 12 qoysna ay yeeshaan intaas soo daraja ay ku yeeshaan dulmiga weyn oo adduunyada dhacay ma jiro. ugu dambeyntii kulanka waxaa soo xiray ugaas Maxamuud Sheekh Xasan. waxaa la rabaa horta tolkay waxaan ka codsanayaa inay calool ballaaran ay yeeshaan oo sabarkii shalay ay ku joogeen
dadkay ku soo dhaweeyaan aad baan ugu celinayaa kelmadda ayada midnimada markay midnimo timaado ayaan ana meel helayaa ayuu dalku jirayaa dadku jirayaa waxaan rabaa marka hore khasaare anaa kusoo daalay 50 sano kadib sidii cunug hadda dhasho oo kale inaan socod barad noqdo waxaan xasuusanaa taariikhda ku haynaa baddan iyo badda caslaba dhexdeedii dowladu ma jirin qabaa'ilo annagoo ayaan deganayn xuduudna nooma dhaxayn ugaasyo baana xukumi jiray waxaan oo dhan dhalay waa siyaasad adduunka inta badan waxaa la yidhahda oromaa Soomaali ah mise Soomaali ah oromaa laakiin isma laha lama laha waxaan qabaa marka tolweyne shalay waad soo dhaweysay waa kaaga mahad celiyey maanta ubadkii aad abtiga u ahayd aabiyaad shalay soo dhaweysay wiilkaagii uwe waa ayaan daro in la yidhaha wiilkii xaquuq male waxaan codsanayaa annagana inaad naga tirtaan oo 60 milyan dhegtoodii aad ku ritaan xaquuqdeen inaan hele walba taageero geeska afrikaan da iskaashada aan noqonay idinkana dulmigii ka badbaadaan horta intaasaan ku darsanayaa aad baan u mahadsantihiin Cabdiraxmaan waa Brisom News Muqdisho.